السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan ummadda ee Puntland. Si aad ogtihiin maalin la weyd waxa duulaan ku soo qaaday gobolka Sanaag oo ka mid ah gobollada Puntland, Somaliland oo aniga aan u aqaano SNM. waynu wada ognahay dagaalkaas in dad badan ay ku dhinteen, qaarkoodna ay ku dhaawacmeen oo la keenay degmada Carmo oo isbitaal ku yaal, halkaasna lagu daaweeyay. saan wada ognahay caalamkuna og yahay, Soomaalida adduunka meel walba ay joogaanna ay wada og tahay nin ka hadlay oo ku jira dowlad isku sheega Puntland ma jiro. taas waxay caddaynaysaa meesha tan inaanaysan dowlad ka aysan jirin, dowlad dhab ah oo rasmi ah inaanaysan ka aysan jirin. Cabduul Cali Gaas baana ka hadlin oo BMO hogaaminaya dowlad isku sheega Fooshaxun, waxaana ka hadlin wasiirka amniga Xirsi Qarjab oo hadda Nairobi aaday, waxaana ka hadlin madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Camey. walaalayaal waad u jeedaan dowladda Puntland maanta inaanaysan ahayn dowlad kaafin karta shacabkeeda oo aan difaaci karin boorarkeeda. walaalayaal mudane Cabdisamed Maxamed Galan wuxuu maalinta dhow sheegayay inay wax run ah ay tahay, taas waa idin caddaynaysa. waa isagii dhahay mudane Cabdisamed Maxamed Galan dowladda Puntland ma laha askar ku filan, ma lahan askar waardiyeyn karta xuduudaheeda. saas awgeed buu wuxuu suubiyey ciidan 2500 gaaraya oo isagu u tababaray oo rabo inuu ku difaaco Puntland. Cabdixakiin Yuusuf taliyaha booliska Boosaaso waad u geedeen maalintii dhaweyd wuxuu ku hadlayay, waa isagii u hanjabayay una dhaaranayay shacabka reer Puntland, siiba shacabka reer bari. haddii uu xiniyo hayo ama ciidan hayo ama wax hayo muxuu wax uga qaban waayay arrintan Somaliland? mise xiniyaha iyo wax walba isagu wuxuu u leeyahay waa dadka walaalihiisa oo gobolka bari degan. tan kaleeto wasiirka warfaafinta soo cadday wuxuu ku dhaartay dhaar ku maray ninkii waraysta mudane Cabdisamed Maxamed Galan inuu dilaayo oo leenayo meel walba uu joogo. wuxuu ku sii dhaartay inuu ciidan haysto. ciidankaas muxuu u difaaci layahay gobolka Sanaag? walaalayaal anigu waxaan oran karaa tan dowlad ma ahan, tan way fashilmatay dhan walba wallaahi alcadiim waa ka fashilantay. marka walaalayaal anigu waxaan ugu dirayaa baaq shacabka Puntland meel walba ay joogaan inaynu inagu isku imaano oo dowlad cusub oo xaq iyo xalaal ah oo adag boordarada waardiyeysa, askar qalabaysan leh, dhan walba in la suubiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Cabduul Cali Gaas wuxuu ku dhaartay maalintii xilka loo dooranayay January 2014 inuu gobol walba haddii dagaal lagu soo qaado within 24 hours uu dagaalkaas uga hortegayo idaacadahan uu hadli doono. maanta waxaan ogaanaa 10 casho inayba dhaaftay. idaacad iska daayay gurigiisii ku oola gaal kacayo buuba ka soo bixi layahay. haddana wuxuu rabaa ciyaar Jubbaland iyo Puntland oo banaadir ka socota inuu daawado. annaka dadkiisii la leynaayo oo maantadii ay dhimatay oo aan ka hadlin wax oo rabo inuu ciyaar daawado, ninkaas ma matali karaa shacabka Puntland? shacabo waxaan dhahaynaa Cabduul Cali Gaas waxaan u baaqaynaa inuu iscasilo. Cabduul Cali Gaas xilkaan ma qaban karo, dhakhtarkiisii baa noo caddeeyey Mark Edward inuu 5 sano daawo qaadanayo. idinkaa maanta u jeeda. waxaan ugu baaqaynaa Cabduul Cali Gaas inuu iscasilo sida ugu dhaqsiyaha badan, inuu isku casilo. Faysal Cali Waraabe maalinta dhaweyd uu dhahayay waxaan tegaynaa Garowe oo haddii yani ay Puntland sheegatay Sool iyo Sanaag annagaa dib ula soo noqonayna, kadibna Garowe waan tegaynaa. Faysal Cali Waraabe hadalkiisii uu ka dhabeeyey oo wallaahi ah, waayo maantay Garowena wuxuu u jiraa 60 kilomitir, dhaharna uu haystaa oo fooda Boosaaso u dhow. taas waxay caddaynaysaa meesha tanu dowlad inaanaysan jirin, inay dowlad beele tahay. dowladda tanu inay dowlad beele tahay oo Cabduul Cali Gaas beeshiisa uun aysan soo dhaafsiisanayn iyo beesha dowladda Qardho. marka walaalayaal waxaan halkan ugu baaqayaa in loo gurmado walaalaheen Sanaag. waa kuwa 1991 xoreeyey gaalkacayo. waa dad sharaf leh, waa dad ciise leh, waa dad deeqaan. waana in kacdoonka Cabdisamed Maxamed Galan uu wado si toos ah loo taageero, waayo idinkaaba u jeedaba, idinkaa ka markhaatiya, idinkaa maanta ka markhaatiya. marka walaalayaal hadalka kuma sii dheeraanayo. Cabduul Cali Gaas waxaan kula talinayaa inuu iscasilo. ma qaban karo xilkaan oo wallaahi
dhan walba kama uu qaban karo ha is casulo dowlad cusub baa insha allahu tacaala la dhisayaa xaqan ah xalaalan ah. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.